Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaad qaybtii labaad. Sidee guusha u gaadhay Aprah Winfrey? Aprah markii dambe waxaa lagu casuumay inay marti geliso bandhig laga sii deynayo TV oo soconayo 30 daqiiqo. Sanad gudihii bandhigii wuxuu noqday waxaana loo kordhiyay waqtigu soconayay iyadoo laga dhigay saacad. intaa kadib bandhigii ama showgii waxaa lagu magac daray Aprah Winfrey Show ama bandhigii Aprah Winfrey. intaa kadib Aprah waxay noqotay qofka koowaad ugu horeeya ee martigeliya bandhigyada TV-yada laga hadlo iyo mid ka mid ah dadka ugu caansan ee ka hadla TV-yada. Dhinaca dhaqaalaha, Aprah waxay noqotay billionaire. waa mid ka mid ah dumarka aadka u tirada yar ee qaatay ciwaanka billionaire. waxaa jira xog aad u badan oo la taxalluuqa sheekada Aprah, balse su'aasha isweydiinta leh waxay tahay maxaan kuugu sheegayaa sheekadan? sababtoo ah waxaan ogahay inay jiraan dad badan oo ku liida hoosna kuu dhigay, kuuna sheegay inaanad waxba qaban karin isla markaana aanad ku fiicnayn. sidoo kale waxaan rabaa in aan kuu sheego in dadka guusha gaadhay ay badanaa la kulmaan diidmooyin la mid ah diidmadan ka hor inta aanay guulaysan. casharada laga qaran karo sheekada Aprah Winfrey. 1. wax dareen ah hasiin diidmada. ma lagu diiday? dhoola cadday oo iska dhaqaaji siina wada socdaalkaaga. haddii aad horay u socoto waxaad u caddayn doontaa kuwii ku diiday inay qaldanaayeen. 2. fikradda ay dadka khabiirada ah ku siiyaan micno weyn ma laha. Aprah qofkii diiday muu ahayn hooyadeed amase qof ay saaxiibo yihiin, balse waxaa diiday qof khabiir ku ah oo wax badan ka yaqaana warbaahinta una sheegay inaanay shaqadan ka soo baxayn. haddana ay u caddaysay in fikirkiisu gebi ahaanba qaldanaa. waxaa laga yaabaa in xitaa dadka khabiirada ah ay ku guuldareystaan inay arkaan aragtidaada mustaqbaleed iyo qorshayaashaada waaweyn. 3. raac riyooyinkaaga. Aprah muu niyad jabin faqriga haystay, daryeel la'aanta waalid ee haystay iyo xitaa diidmooyinkii adkaa ee lagala hor yimidba. iyadoon waxaan u joojinayn ayay horay u socotay ilaa ay ka guulaysatay.